أما عن مستقبل habeen wanaagsan wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in hadda aan idin la hadlayno daqiiqado ka hor dagaal culus uu mar kale dib uga qarxay magaaladaasi Garowe saacada geeska Afrika iyo magaalada Garowe ba hadda waa 7:30 daqiiqo ay u dhowdahay xilligan ayaana dagaal culus waxa uu ka qarxay magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland dareenka rasaasta culus ayaa laga maqlayaa guud ahaan xaafadaha magaalada iyadoo ay xusid mudan tahay in maanta dagaal culus uu magaaladaasi ka qarxay waan ay odayaasha wadeen galabta ayaa u muuqatay inay guul dareysatay taasi oo la doonayay in xabad joojin lagu kala dhigo dhinacyadii saakay ilaa iyo maanta ku dagaalamaya magaalada Garowe rasaasta haatan laga maqlayo xaafadaha qaar ee magaalada Garowe ayaa marka ka dambeysay aad u sii kordhaysa iyadoona dad goob joogayaal ku sugan Garowe aanu hadda la hadalnay inoo xaqiijiyeen in rasaas culus laga maqlayo daafaha magaalada iyo gudaha magaalada waxaa muuqato in xabad joojintii la filayay in odayaashu ay dhaxdhaxaad ka noqdaan inay guul dareysatay maadaama waqtigan idin la hadlayno saacaduna ay tahay 7:30 daqiiqo oo dagaal ka qarxay magaalada Garowe lama oga dagaalka caawa waxa sababay iyadoo ay xusid mudan tahay dhinacyadii maanta dagaalamay ay isku horfadhiyeen furimihii dagaalka oo maanta ay ku dagaalameen dagaalkii maanta dhacay waxa la xaqiijiyay ku dhawaad 30 ruux inay ku geeriyoodeen halka tiro intaasi ka badanna dhaawacyadooda la geeyay cisbitaalada magaalada Garowe haddaba wixii warar ay ku soo kordhay dagaalka caawa ka qarxay magaalada Garowe wararkeena ayaad ku dhageysan doontaan insha Allah isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhasus leh daweynta xanuunkaaga waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Gubadle badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital